madaxweynihii waddanka Chad Idriss Deby ayaa ku geeriyooday dagaal ka dhacay waqooyiga waddankaasi kadib markii uu booqasho ku tagay furinta hore ee dagaal u dhaxeeyay mucaaradka ku siqayay caasimadda N'Djamena iyo militariga oo iska caabinayay. Idriss waxa uu geeriyooday maalin kadib markii xukunkiisa oo 30 sano jirsaday lagu daray muddo xileed kale oo uu helay 79% codadkii ay dhiibteen dadka dalkaas, waxaana ay ahayd doorashadii lixaad oo xilka ku sii hayn lahaa. afayeen u hadlay militariga ayaa sheegay in halkii uu madaxweynuhu guusha doorashada la wadaagi lahaa shacabka uu ka doorbiday inuu militariga dagaalka ku jira dhiirigeliyo, halkaas uu dhaawac ka soo gaaray una geeriyooday. dalka Chad ayaa waxaa la wareegay gole militari, waxaana xilka madaxweynaha si ku meel gaar ah loogu dhiibay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabo Maxamed Kaka. kooxda FACT ee dagaalka kula jirta Chad ayaa waxaa taageera hogaamiyaha mucaaradka Liibiya ee Khalifa Haftar oo isaguna taageero ka hela Ruushka, Imaaraadka iyo Masar. Idriss Deby ayaa ku dhashay N'Djamena 18 Juun 1952, waxaana uu dalkaasi qabsaday isagoo hogaaminayay koox la mid ahayd midda isaga maanta dishay. waxa uu xilka xoog uga wareegay bishii December sanadkii 1990 madaxweyne Xasan Hebre. kadib markii uu dalkaas qabsaday sanadkii 1990 waxa madaxweyne loo doortay sanadkii 1906, waxa mar kale la doortay 2001 kadibna waxa uu laalay dastuurka waddanka oo muddo xileedkiisu ku dhamaanayay ama ku koobnaa 2 muddo xileed oo kaliya, waxaana uu ka dhigay mid furan. kadibna waxa la doortay 2006, 2011, 2016 iyo 2021 oo shalay la doortay, ha yeeshee uusan calfan oo maanta la dilay.